Khabiir ku dhawaaday helidda daawada coronavirus-ka oo lagu dilay Mareykanka. Khabiir dadaal ugu jiray helidda daawada cudurka safmarka ee coronavirus-ka ayaa lagu toogtay dalka Mareykanka sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Mareykanka. Peng Liu, khabiir dhanka baaritaanada daawooyinka u qaabilsan jaamacadda Pittsburgh, ayaa meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala Ross Township, waqooyiga Pittsburgh. Jaamacadda ayaa Dr. Liu ku tilmaantay cilmi-baare sare ah oo wax badan sayniska ku soo biiriyay. Wuxuu ku dhowaa helidda daawada cudurka coronavirus-ka. Waxaanu ku dadaalaynaa inaan dhammaystirno dadaalkii uu bilaabay, ayaa lagu qoray bayaan ay jaamacadda soo saartay. Booliiska ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadani. Halkaad nagala socoteen waa Qowl Media TV. Si aad u hesho warar xaqiiqda ku saleysan, subscribe channelkeena Qowl Media TV, gambaleelka furo lana wadaag asxaabtaada. Waad ku mahadsan tahay dhegeysigaada.